guddi ka koobnaa 16 xubnood oo kal hore uu magacaabay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo muddo 3 bilood u fadhiyay dib u eegista xeerka saxaafadda iyo inay ka saaraan waxyaabaha nuucuntamin saxaafadda madaxa bannaan ayaa ugu dambeyn waxay ku wareejiyeen wasaaradda warfaafinta isagoona wasiirka uu u gudbiyay golaha xukuumadda Soomaaliya isla markaana sida ku qoran xeerkani oo loo bedelay luqadda afka qalaad ee Englishka kuwaas oo marka la eego qodobada qaarna ay bedelan yihiin waxaana kulan looga hadlayay arrimahani oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda waddankani taas oo ay soo qaban qaabisay hay'adda tababarada saxaafadda ee Internews waxaana kulanka uu ahaa mid ra'yi fara badan la isku dhaafsanay iyadoona suxufiyiintii ka soo qayb galay madaxda kala duwan ee warbaahinta halkaasi ay kaga doodeen sida ay u arkaan iyo waxyaabaha haatan la gudboon warbaahinta Soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga saxaafadda ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo mudanayaal kale waxaana sidoo kale kulan ka soo qayb galay Yuusuf Garaad Cumar oo ah khabiir saxaafadeed iyo sidoo kale madaxda kala duwan ee warbaahinta Soomaaliyeed kulanka ayaa ugu horeyn waxaa daahfuray Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isagu sheegay in ay u taala arrinkani baarlamaanka Soomaaliya isla mar ahaantaana xilliga loo soo gudbiyo golaha saxaafadda ee baarlamaanka marka horeba ay dhaliilayaan buugan in uu ku qoran yahay luqadda afka qalaad xukuumadda ku soo qortay Englishka waxa weeye waa khalad baan qabaa taan nafteeda khalad xukuumaddu af Soomaali inay ku soo gudbiso wasiirkii sharcigaas yani wasaaraddiisu gudbisay ayaa baarlamaanka imanaya waa idin yeereynaa dad wakiilina ka maalinkii sharciga aan gudbinay qodobada isku soo aaday waxay ahaayeen sharcigii oo gudbinay iyo wasiirkii qodobkiisa maalinkii xigtay la baasgareynaya ah wax laga bedelana loo cadeeyay annaga wixii laga bedelayna aan lagu soo celin doonaa qodobkan iyo laba dhaafaan noqday waa ku qasbanaan inaan qaadano dawlad ahaan qodobkan ku qasbanaan aan la leeyahay marka laga leexdo yaan qiil loo raadin kar laga leexdo yaa hal la isbaro in laga leexdo dadka la nabad geliyo dhaqankii shaqadu waa inay saas ahaato cidda ka leexatana wax taariikhda ka soo baxo la yiraahdo tii beriga maxasabtay ku dhacay inay ka timaado ayaa habboon waa aniga ra'yigayga shakhsiga laakiin ka wariye ahaan hab dhaqanka hadda dawladda ka muuqdo islama socoto dhan waxaa socdo oo qayb ka mid ah dawladda ka muuqato saxaafad nacayb oo waliba soo taray marka dambayso qofkii dib u raaco bishii August interview madaxweynaha bixiyay waddanka Mareykanka intuu joogay waxay ahayd in dibkan al-shabaab la sheegay inuu saxaafadda ku hareeyay yani waxa daacad ma aha ayadoo film ayadoo video wallahi rajada kaliya ay qabaan warbaahinta Soomaaliyeed ayaa waxay tahay xilliga la horgeeyo baarlamaanka isagoona gudoomiyaha guddiga saxaafadda uu ballan qaaday warbaahinta in xilliga xeerkani laga doodayo ee la horkeena baarlamaanka Soomaaliya ay u yeeri doonaan wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale madaxda warbaahinta guddiga ay sameeysan doonaan Cabdirasaaq Mirador Cable TV Muqdisho.